hambaliyo. Ugu dambeyntii waxaa soo idlaaday jacaylkii isku beddelay guur, Jahro iyo Cabdi. Waa lamaane isdoortay oo ka mid ahaa jamaahiirta jugta culus. Jahro waxay ahayd gabadha ugu fiican uguna degan jamaahiirta. Cabdina wuxuu ahaa wiilka ugu aamusnaanta badan uguna degan. Waa lamaane isdoortay, isfahmay, isku fahmeen in ay mustaqbal wada qaybsadaan. Waxaa idin leeyahay guurkiina guur kheyr, gurigiina gurinagi, anigoo ah afyaheenka jamaahiirta jugta culus. Runtii xafladan looma kala harin rag iyo dumar. Waxaa ka soo qayb galay gabdhahan sidaan u qurxoon, ciisada iyo sharafta leh, midba midda kale ay ka qurux badan tahay oo jamaahiirta jugta culus ah. Ani waxaan is weydiiyey waxay tahay maanta markaan arkay gabdhaheeni, maxaa loo dhahaa gabar jirir way fool xun tahay? War gabdhahan sidaan u qurxoon aan ku dhahay, war markaan arkay ana dhan waa isku labmi aan ku dhahay, isku labmi. Gabdhaheeni waa gabdho oo gab ah, aan marba la gaari karin, oo aad iyo aad u qurxoon. Maasha Allah. Fadlan hadduu muuqaalkan ku soo gaaro, subscribe, like, share, meel fiican gaarsiya. Inta qalbiyada wanaagsan way qurux badan yihiin. Quruxda lagu sheegay kaliya ma ahan jirka ma ahan. Hadday dabeecadaada wanaagsan tahay, akhlaaqdaada ay wanaagsan tahay, bulshada aad kula dhaqmayso dabeecad aad iyo aad u wanaagsan, waxaa tahay ruux qaali ah aan la heli karin. Soomaali waxaan idin leeyahay guul iyo gabanimo. Lamaanaha isdoortay waxaan leeyahay waxaa idin bilaabatay noloshaasoo safarkeedu aad iyo aad u dheer yahay. Safarkaasna waxaa ku guuleysan karo laba qof oo aad iyo aad isku fahmay. Marka waxaan idin leeyahay isku sabraa oo isku dulqaataa. Su-aasha meesha taagan waxay tahay labadiina yaa sabri doono, yaane loo sabri doonaa? Dabcan waxaan rajeynaa walaashayda Jahro inay noqoto qoftii mar waliba sabri lahayd. Walaalkaygana waxaan rajeynaa qofkii mar waliba asagana u sabri lahaa walaashiisa markay xanaaqdo inuu hadalka u dejiyo, ayadana markii ninkeeda uu xanaaqo in ay hadalka u dejiso. Dabcan walaashay Jahro waxaan leeyahay walaashay waxaa kuu bilaabatay nolol cusub. Waxaad hantisay qofka aad dooratay. Dabcan rag badan waa soo shukaansatay. Ugu dambeyntii nasiibkaaga wuxuu noqday Cabdi Saciid in aad hantiso. Asne sidoo kale. Inta ku faraxsan guurkan waxaan leeyahay qaybta commentiga hambaliyo laga soo dhigo. Inta ka xun waxaan leeyahay ilqabu cadaabta gal. Gaar ahaan waxaan leeyahay abaayo Jahro noqo qoftii sabri lahayd. Anaga rag haddaan nahay dhibaatadeena way badan tahay, balse mar waliba idinka noo sabra. Waayo dumarka waxa lagu yaqaano waa sabar iyo dulqaad. Haddii adig aad sabarto, reerkan mar waliba wuxuu noqon doonaa mid taagnaada. Jacaylkiina wuxuu noqon doonaa mid aad ku liibaantaan. Mirihii ka soo baxayna si wadajir ayaad u wada cunaysaan. Dumarow waxaan leeyahay waxaad tihiin walaalaheena, waxaad tihiin gabdhaheena, waxaad tihiin hooyooyinkiina, waxaad tihiin saaxiibadayna. Anaga rag haddaan nahay noo dulqaata. Awaalkiina Ilaahay janaha ku bedelo. Waxaan idin leeyahay lamaanaha isdoortay waxaad noqotaan laba qof ayaga isxalin kara. Dhexdiina saddexeeye yuusan soo gelin. Dad ayaga isxalin waaye ma awoodi karaan farxadooda in ay ayaga samaystaan. Dhexdiina saddexeeye ka ilaaliya. Xaalad waliba waxaad noqotaan dad ayaga isxaliya. Lamaane waliba isdoortay ha noqdaan kuwa ayaga arrimahooda xalin kara. Shalay qaabkaad isku shukaansateen, aad isku fahanteen, aadna u go'aansateen in aad mustaqbal u wada qaybsataan, haddana isku fahma reerkiina in uu idin isnaado. Waxaan leeyahay hambaliyo. Guurkiina guur kheyr, gurigiina gurinagi.